gabadhaani oo gaarigan saaran ayaa waxa u imaanaya ninkaani wuxuuna tusayaa banooni uu ku dhex jiro warqad waxay ku leedahay waa maxay way ka qaadaysaa waxay damcaysaa warqadda inay kasoo saarta banooniga isla marka ninka wuxuu bilaabay gaariga furaha in uu ka jaro wuuna ka cararaya gabadha waxay kasoo degaysaa gaariga ninka ayay kasoo dabaaraysa waxay leedahay war furahayga sii markaas ay waxay soo xasuusinaysaa banooniga u dhiibay warqadii ku dhex jirtay banooniga ayay warqadda kasoo saaraysaa waxaana ku qoran haddii aad dheerayso iga soo qaado furahaada isla marka ninka ayay ka daba cararaysaa furaha inay ka qaadata ee damcaysa markay ka daba cararto sii cararaya ugu dambeyn gaariga hortiisa nin ayaa kasoo baxayo kadib ninkii ayuu furaha u turiyaa ninkani wuxuu bilaabay gaariga in uu kaxeeyo isla marka ninka kalena meesha ayuu ka carray gabadha oo meesha ku calaacalis ayaa waxaa imaanaya ninkan mootada wato wuxuuna ku leeyahay maxaa kugu dhacay adiga waxaana aaga sheekeynaysaa dhibka ayada ku dhacay waxay u sheegaysaa gaarigada inay burcadaas ay dhaceen wuxuu ku leeyahay nakeen waa erinaynaa ninkii mootada waday ayaa gabadhii soo qaadayo labada ninna waxay ku qosliyaan halkan waxay leeyihin kaban sida fudud aan gabadha aan u qayaanay aan iskaga dhigna dagoolaha ninkaani ninka kale waa ka tegayaa isla marka waxaa imaanayo gabadhii iyo ninkii mootoolaha ah gabadha mootada ayay kasoo degaysaa waxay usoo dhisaa gaariga xaggiisa ninka mootoolaha ayay ku leedahay gaarigayga waa kan ninka dhacani waa kan waa inaad cashir aad u dhigtaa ninka mootola ayaa mootada kasoo degaya wuxuuna soo aadaa dhanka gabadha isla marka labada gacan ayaa isdulkusinaya wuxuuna ku leeyahay waa maxay cashirka aad sheegayso ani iragan waan isla shaqeynaa oo waxaana dad wada shaqeeya labadaa nin way qoslayaan isla markana waxay isku dhufanayaan gacmaha isla markan gabadha ayuu gacanta aaga dhigayaa wuxuuna ku leeyahay wax walba oo qaali ah aad hayso waa in aadna siisaa xariifkan wuu qoslayaa markaas ayay maqlayaan dhabaqa booliiska midkan ayaa dhahaya sidee ba ku ogaadeen booliiska meesha aniga aan ku dhuuminayo gabadha ayaa u sheegayso booliiska ayada inay u sheegta mootada ee saarneed gabadhaani booliiska ay u dirtay fariin kadibna ay u dirtay locationkeeda nimankan markay ogaadaan midaas waxay leeyihin war meesha naga cararsi meesha ayay ka kala cararanayan gabadhan waxay ku leedahay kaaliyaha cararinaya kaaliya qaata gaariga ayay leedahay kadibna gaarigada ayay soo qaadanaysaa fadlan hilmaami in aad taawato calaamada subscribe-ka si aad ula socoto muuqaal baan soo gelino